komishanka qaranka doorashooyinka ee Somaliland ayaa maanta kaga dhawaaqay hotel Sow ee magaalada Boorama in la soo gabagabeeyay wajigii labaad ee qaadashada kaarka codbixinta gobolka Awdal waxayna sheegeen in arrintaasi kaar qaadashadu ay ku soo dhamaatay si nabadgelyo ah iyadoo ay dadka kaarka qaatayna ay si nidaamsan ay hawshaasi uga shaqaynayeen waxa kaloo ay tilmaameen in gabagabadii iyo guntii 22 maalmood oo kaarka qaadashadiisa uu ka socday gobolkan Awdal uu ku soo dhamaaday sidii loogu talagalay komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland oo ka hadlayay arrimahaasi ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa qaybinta oo inoo bilaabatay 29 bisha Afraad inoo soo gabagabowday 22 bisha Shanaad oo ahayd shalay wax Ilaahay loogu mahadnaqo inay si guul ah ay loo soo dhamaatay oo nabadgelyo ah oo farxad leh oo sida ay ugu talagalay inay loo soo dhamaato maanta waa farxad dhamaan qaranka oo dhan taala farxad bay loogu dhamaatay sida ay ugu talagalay way loogu dhamaatay waxay sheegeen maalintii 162 goobood in gobolka leeyahay 162 gooboodba si wanaagsan ayay uga dhacday kaar qaybintu waxaanay soo xarootay ilaa xalay 1 iyo barkii way socdeen waxa runtii hadii cid uu amaan leedahay inay shaqadaasi qabsoontana waxa iska leh ardayda jaamacadda Camud waxa iska leh ardayda jaamacadda Camud markay taaleenahay waxaan filayaa sanadkii 8 maalin hore oo sheegay sanadkii 8 ku soo noqonaya oo hawl la mid ah ama kaar bedelkii koowaad ha noqdo ama tii madaxweynaha hore ha noqoto ama tii golaha deegaanka ha noqoto ama tii diiwaangelinta ha noqoto nabad bay ku soo dhamaatay qayshadii hadda ku soo dhamaatay waa la fahmay diiwaangelinta waxay noqonaysaa wixii ama dhintay laga saaro wixii qaangaaray lagu soo daro way socotay qofka muxuu iibaasaday kaarku iibaasaday qalbigu iibaasaday maanta guul bay ku joognaa halka aynu joognana waxaynu ku soo dhamayno maanta ku xidhaynaa guul iyo reexay iyo sharaf iyo nidaam inoo qabsoomay sidoo kale xisbiyada qaranka saddexda xisbi qaran oo iyaguna ka waramay qaabkii ay u dhacday kaar qaadashada ka socotay gobolkan Awdal ayaa waxay tilmaameen hoyga aqoonta waa hoyga soo saara maskaxda Soomaaliland maanta ka talisa waa hoyga la isaga yimaado afarta koone ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan lagu qalon waa hoyga idaabta ixtiraamka iyo akhlaaqda waana ku soo celinaya waa hoyga waxbarashada soo saara dad kaalibirkooda fikirku oo aad u sareeyo ciidamadii qaranka iyo bilayska ee ka soo qayb qaatay ilaalinta iyo sugidda amniga ee goobihii ay ka socoto kaadbeento waxaan rajaynaynaa gobollada kale Somaliland in sidaa ay u qabatay ee uga soo baxay oo ka marxaati ahay in sidoo ugu quruxda badneed uga dhacday gobolka Awdal anigoo aan dhanna ka eegaynin waxaan leeyahay sidoo ugu wanaagsaneed ban marag iyo marxaati uga ahay in gobolka Awdal uga dhacday hoggaanka dhaqanka ee gobolka Awdal oo isna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu yiri aad baan ugu buugaanaynaa haddii aad shalay arintu hawsha ay bilowday maantana hadday soo gabagabowday runtii gudoomiyaha jaamacadda Camud ayaa isaguna waxa uu sheegay komishanka doorashooyinka heer kastaba hayo joogan degmo gobol iyo qaranba iyo howlwadanada la shaqeeyay waan joogay tii horeysay ilaa imaka maayirka degmada Boorama iyo barasaabka gobolka Awdal ayaa iyaguna waxay carabka ku dhufteen waa Ilaahay mahadii mar hadii hawshii qaranka ee kaar bixinta gobolka Awdal ay maanta soo gabagabowday oo sidii aynu rabnay oo ayna hirdiin ay noogu dhamaatay say u dhacday runtii waa si aan aad ugu faraxsanahay haddaan nahay mas'uuliyiintii gobolka aad baan ugu mahadcelinaynaa komishanka ee ahaa ardayda jaamacadda Camud komishanka wuxuu yidhi haddii xaram gobolka uu lahaan lahaa ama haddii magaalooyinka ay boori aan lahayn jid ahaan lahayn jaamacadda Camud ay noqon lahayd wadna ay noqon lahayd wadnaha haweeney jidkiisa kala noqon waa caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama.